kasoo shaqeeyay countiga Garissa kusoo dhawow Jamaal muqbahayaha STN waa mahadsantahay walaal Xudayf waan dhawahay aad baa mahadsantahay Jamaal marka laga soo tago in nin dhalinyaro aad tahay wax badanna aad maaragtay maamulka Garissa ka jira ee countiga la soo shaqeysay dhanka dawladda iyo aad tahay nin maaragtay ururada dhalinyarada kala duwan inta badan ka dhex muuqda marka loo eego dhalinyarada Garissa iyo doorka ay ku leeyihiin siyaasadda Garissa balka war waa mahadsantahay Xudayf dhalintu horta door fiican bay ku leeyihiin siyaasadda inkastoo inta badan countiga si la rabay haddana aynan ugu loogu xaqabtirin oon loo siinin haddana sidaa ay tahay dhalintu skills iyo waxyaabo loo sameeyaa jiro siyaasadda qayb ay uga qayb qaataan baa jiro laakiin haddana waxa sidaa ay tahay looma dhamaystiro oo 100% ama 70% sidii la rabay wixii loo wada helo qaar wax un helaan waa jiraan laakiin haddana inta badan waa iska qabiyo marka laga soo tago in sidii la rabay wax loogu dhamaystira dawladda countiga ka jirta hadda uu hogaaminayo mudane Cali Bunow Qorane wax badan ayay qabatay waxyaabana waa lagu eedeeyaa waxyaabaha ay qabatay dhanka dhalinyarada kamid ma tahay maya kamid ma runtii waxyaabaha ay qabatay waa waxyaabo kale caafimaadka ku saabsan xafiisyo hadda loo sameynayo maxay countiga ku saabsan laakiin dhalinta doorkooda waxba kama qaban dawladdan gabi ahaan qadarintooda iyo waxooga u badan ay qabtaan waa dhanka duqeyda maxay ahayd odayaasha inay taxgeliyaan laakiin dhalinta inta badan doorkoodii waxaad moodaa in aynan aad loogu xaqabtirin haddii wax loo qabtay odayaashii iyo duqeydii isla markaas arrimaha caafimaadka wax laga qabtay inta dhiman dhalinyaradana ay qabtaan soo loogama baahnayna dawladda ay ismuujiyaan oo ay ka qayb qaataan run ahaantii haa waa looga baahan yahay laakiin dhalintu gacan maran wax kuma qaban karaan waa inay helaan support caawinaad dawladeed waa inay helaan waa lagama maarmaan dawladda inay wax caawiso waxaa jira xubno dhalinyaro kamid ah oo ku jiro golaha baarlamaanka ama aqalka baarlamaanka ee countiga soo iyagu soo lama rabo marka inay gudbiyaan wallaahi dadkana gabay oo runtii shaqadooda aan kasoo bixin oon rabo inaan inta ka hadlo waa qolada hadda governaga maaha dhibka u weyn waa MCA-yaasha way qolada aan soo dooranay ismaamulka hoose qolada xildhibaanada noo ah qolada weeyaan hadda dhibka u badan iyo mushkilada u badan meesha naga haysto siyaasadda baynan garanaynin doorkoodii baynan garanaynin wixii ay ka ciyaari lahaayeen baynan garanaynin maxay ahayd waa kuwa haddana inta badan rabo qaarkood in un maaragtay lacaguna iyaga raadsado qandaraasuna iyaga raadsado wax laakiin dowr ay ka qaataan ama dawlad ay la xisaabtamayaan ama dad biyo la-aan ku dhacday iyo caafimaad wax si ka noqday MCA intuu meel tago ka hadlayo ama baahidaasaa jirto dhow ma arkaysa maxaa u diiday marka in maaragtay iyagu ay dadkii laga soo dhex doortay intay ku dhex laabtaan ay weydiiyaan waxyaabaha ay u baahan yihiin waxyaabaha ka maqan in ay weydiiyaan maxaa u diiday MCA wallaahi waxaa u diiday hadda nin caloosha loo buuxiyay nin hadlaay maaha oo musuq maasuq runtii waa rag musuq baahiyey oo haddii guri uu dhisto ama 2 milyan la iska siiyo ama qandaraas yar la siiyo hadda waa beri oo kale MCA ka soo galo biyo la-aan ka jirto mar uu ka hadlana ma jirto iftin meesha la yiraahdo buula iftin iyo dhinaca Dekabure oo hadda wax yar laga xaliyo biyo leh buula Sambul buula county oo aniga meesha aan deganahay muddo 3 bilood soo dhaafay biyo ma laha biyo la-aan baa ka jirta waxbana lagama qabto hadlina baa la dhihi iska aamusa baa la dhihi fuj wax aanan yani yaa marka looga baahan yahay in halkaas wax ka qabto oo baahiyaha dadkaasi inay soo gudbiyaan looga baahan yahay wallaahi baahida dadka hayso oo dawladda iyo wasiirada iyo governorka iyo deputy governorka wixii ay feelgareeyaan waxa shacabka mathalaya oo la rabay dadka inay la xisaabtamaan horta waa kuwa hadda aan ka hadlayna MCA-yaasha haddaynan ka hadlin oo calooshooda loo buuxiyey dee dadkii waxay iska noqon markaa shacabka dad baahan oo cid u hadlaysa iyo cid maxay ahayd dacwadooda gudbinayso ama cid inay dadkii biyo heleen ama service-kii uu gaaray loogu talagalay uma iska noqon markaad leedahay MCA-yaasha caloosha loo buuxiyey ma waxaad kala jeedaa in ayagu ay dadkii wixii loo qaban lahaa qaateen runtii ayaga wixii dadka loo qaban lahaa ma aynan qaadanin laakiin lacaga gunay qaadanayaan oo ah in ay ku daboolaan baahidii jirto inay ka hadlaan ahayd tan baahiyaha biyaha
MCA-yada markii laga soo tago ururada dhalinyarada ka jira soo ayaga awood uma laha dowladda inay u tagaan maamulka countiga ay yidhaahdaan tani tanaa jirta MCA-yada inay teleefanadooda wacaan ama masajo loo qoro la dhaho aaway waxaan idinkaga baahnayn waa garteen soo maha wallaahi runtii ha waa arrin loo baahnaa way sameeyaan qaar dhalintu inta badan waxay sameyn karaan dee haddaa governor xafiiskiisa tagto ciidan baa iska horjoogo banaanka unbaad ka qaybqayli oo taagnaani marka wax hadda runtii isku sii howle ma laha laakiin haddana waxa sidaa ay tahay social mediada kama marno inay gaarisa meelaha aanan biyaha jirin waan ku qornaa markasto waa biyo la-aan xaafadaasaa biyo la-aan weli hadda waxaa naga qaylisiinaya inta badan waa biyaha shayga koobaad ee governor cali markuu soo galay uu ku campaign gareynayo 100 maalin oo ugu hore inuu wax ka qabtay ahayd waa biyaha Bula County in fact waxaan isleeyahay meelaha u roonay ahayd oo biyo lahayd hataa xilliga nadiif ilaa isaga inta hore soo galay hadda Bula County waxay ku darsantay sida bulooyinkan Bula Masalani Bula Sagara Bula Xagar Bula Mazuri tawakal iyada xilliga nadiif 5 sano horena dad baabaasan bay iska hayeen haddana kadaalika sidoo kale marka bulooyinkaas aa sheegtay oo ilaa iyo nadiif ilaa iyo hadda baabaasan dadka laga soo doortay miyaysan dadkooda iyagu deganeyn inay wax qabtaan diyaar u ahayn والله dadka laga soo doortay waa dadka hadda aan ka hadalnay dad diyaar u ah ma laha kaliya hadda waxa ka hadlay biyaha oo aad uga hadlayo mudane majority leader aadan bare ducaale yaa ka hadlay tiyo xamaasad dhalisay oo maxaad uga hadli leeyahay xaq buu u leeyahay inuu ka hadlo waa xaqiiq jirto biyaha baahida laga qabo dhibka laga qabo run ahaantii waa qasab in laga hadlo oo la dhaho dadkii biyo ma laha maxaa yeelay waa nin meesha laga soo doortay haddana way kala tahay oo biyo la-aanta u badan ee dhibkii magaalada la wada deganaa waa magaaladu isaga xildhibaanka waa Garissa Township aadan bare inta badan waxa uu eedeeyaa dowladda countiga isagoo waxyaabo kala duwan ku eedeeya dowladda countigana waxay sheegtaa ninka siyaasadda Garissa qasaya ee maaragtay doonaya durdureelo inuu yeelno asaga yahay arrintaasi ka warranaya wallahi waxaan isleeyahay dowladda countiga aadan bare wuxuu ku eedeeyay wixii khaladaadkooda oo aan isdhihi karo maxay ahayd dowladdii wixii servicekii ay soo gudbin weysay buu leeyahay maad waxa hadda garage gooni ama hadda cuqdad gooni ayaga uu hayo ma jirtaan isleeyahay laakiin kaliya hadda waxa uu doorbida waxay ahayd war wixii dadkii waan u wada dhaaranay aan u wada adeegno isaguna inta badan wuxuu ku amaanan yahay nin servicekiisa soo gudbiyo wixii looga baahnaa soo gudbiyo CDF haday noqoto infrastructure haday noqoto waxyaabo badan wax ka qabtay hooyooyinka suuqa qorraxyo kale waxyaabo badan oo dadka aad inta u badan waa nin dadka aad u caawiyay masaajida madaarista maxay ahayd hataa culumada waa nin aad ugu tiirsan dhalinta markay noqoto hataa anaga countiga markii loo aadan bar markii loo dhalinta 100% aadan bar noor waa nin teleefonkaaga jawaabayo dhibkii loo sheego sport haday noqoto waxyaabo badan marka hadaan u noqdo su'aashaadii weydiisay aadan bar hadda wax dan gooniya oo hadda qolada uu kaliya waxaan leeyahay ma jirto kaliya waxa weeyaan war wixii dadkii aan u adeegno iyo maxaa dadka dulduleelkeena aad u tusaysaa oo ma naga aamustid oo sida MCA-yaashu aamusan yihiin oo kale inuu aamusaal rabay taana waxaan leeyahay aadan bare fikrad ahaantayda uu ku sameeyay MCA-yada qaar ayaa sheegay in aadan bare uu u gafay isla markaasina uu sheegay waraysi uu bixiyay aadan bare ugu sheegay in maaragtay ay jiraan lacago contract ay raadsadaan kadibna la siiyo ay ku aamusaan MCA-yada taasina ay ku tilmaameen wax kama jiraan arrintaas taa waxba kama jiraan maaha waa run inay jirto waa waxa ay uga aamusayaan qof walba markuu meesha soo galo hadda waxaan arkay maalin hore iftin meesha aniga aan deganahay oo ninka aan doorta ahaa oo ku faantamayo le aadan bare annaga way jirtaa buu yiri gaabow waan qaadanay maxay ahayd qandaraas baan qaadanay haddii aan qaadano isagaba dowladdu ka qaata dee saxan ku gud meesha ma noqonayso aadan bare hadduu ka qaatood og tahay adigana inaad dhahdood ku faanto oo tan aadan bare meel lama uu soo istaagine hadduu kugu eedeeyo ma jirtaa inaad ku ekaato baa fiican ani haddaan qaato isagana uu qaato maxaa ka jira haddaad dhahdo taas dee skills of leadership qofkaas oo kale ma laha waana ninka hadda anaga na failgareeyey oo aanan ka hadlaynin biyaha oo majority leaderka ka ah maxay ahayd Garis runtan aanan ka hadlaynin maalin hore wuxuu yiri iftin biyay qabtaa de kulli waxa biyo qabtaa oo maleen baloodka xaafadda isagu uu degan yahay iftin ma qabto laakiin ma qabto biyo iftin county high baan biyo qabin 3 bilood arkin Buulejara baan biyo qabin Sambul baan biyo qabin intaba iftin bay ka tirsan yihiin laakiin isagu ma xisaabtamo uma xisaabsanaba meel uu tago ama baahida biyahooda uu arko ama uu la socdo
ma laha maalinkan dooran un baa noogu dambeysay nin telefoon qabtana ma laha nin dadkiisa ku xiranna ma laha nin waxaad moodaa un shaksi qof un u shaqaynayo nin lasoo doorta u malist marka way jirtaa arrinta uu ku tilmaamayo in ay qandaraase ay qaataan way jirtaa way qaataan baahina kama hadlaan ilaa hadda maxay ahayde mudane xildhibaan baarlamaan oo kasoo galay ismaamulka Gaarisa intuu meel istaagay baahida biyaha ka hadlay ilaa hadda ma jirto baahida biyahana wax waa la sheegaa wax yar laga qabtay laakiin baahida biyaha ilaa nadiif waqtigiisii baahidii loo qabay biyaha waa la qabaa dhaliisha iyo eedda countigana waa taa haddaynan wax ka qaban karinna dee waa wax ay ku ceeboobayaan kuna feelgareeyeen aadan barre miyuusan door ku lahayn asaga in wax ka qabto arrintan biyaha ay taagan in muddo sanada soo laalaabanayso soo maahan inuu gacan ka geysto asaga naftirkiisa uu isku dayo inuu wax ka qabto baahiyahan runtii waa runta kama qaban karo hal buu uga qaban karino waa devolve waxaa weeye countiyada loo wareejiyey caafimaadka biyaha waxyaabaha la wareejiyey kamid tahay marka aadan bare dee wax devolve ah oo lacagteedii naloogu soo dhiibay countiga waxba kama qaban karo shaqadiisana maaha laakiin keliya wuxuu ka qaban kara waxaa weeyaan biyo la-aanta jirto inuu sheego uu yiraahdo war dadkaa biyo maa la siiyo xaafadaa biyo ma qabto war biyaha dadka siiya oo cadaalada inuu ka hadlo ma aha laftirkiisu sida MCA-yada inay aamusaan oo biyo waa la helaa ay dhahaan iska aamusaan aadan bare waa siyaasi magac iyo maamuus ku leh bulshada Soomaaliyeed iyo guud ahaan dalkani Kenya inta badan saameyn ayuu leeyahay hadaladiisa soo ma habooneen aadan bare markii dowladda Kenya ay wax qarado masiirka ugu sareeya maaragtay haddii aan lahayd Uhuru Kenyatta ama Ruto ama wasiiradaba intuu yeera ayuu la fadhiistaa oo wuxuu u sheegaa soo ma ahayn marka dowladda nadiif ee countiga inuu u tago oo uu la fadhiisto wax u sheego sida uu dowladda dhaxaba u saxo wallahi ha waa runta dowladda dhexdeeda markuu saxayo wasiiradeeda iyo waxyaabahan maxay ahayd wuxuu ahaa shaqadiisa ahayd wasiirada markii vetting lagu sameynayo markii la marinayo ninka mariyo way madaxweynaha de iyo ayagu federaalka ay u xilsaaran yihiin waa rag Nairobi ku eg shaqo federaal bay leeyihiin laakiin hadda wasiire iyo uma wadan karo maxaa la oran jiray dowladda countiga laakiin ayaga ay ahayd inuu la hadlo dee ayagina waxaad moodaa xurguf iyo dagaal iyo wax inuu kala dhexmaray taabaa keentay markii aadan bare inuu ka qayliyo mar walba uu yiraahdo kolley haddii dee lacagtii biyihii la keenay oo musuq maasuq la sameynayo wixii lasoo gudbinayninba aadan bare keliya waxaa un maqaamkiisa ama la gudboon inuu yiraahdo war biyihii musuq maasuq baa galay ama lacagta countiga meel cidlaa lagu cunayaa musuq maasuqa wax laga qabto inuu qoladii musuq maasuq la dagaalamay anti corruptionka wixii uu kusoo hodo uu kusoo tilmaamo oo maaragtay uu yiraahdo war dadka la xisaabtan adag hala la xisaabtamo doorka kaliya uu ciyaari karo waa ka laakiin shaqada rasmiga cidda ay u taalo oo dagaalna wixii ka dhigay siyaasadeeyay mana habooneen runtii in la siyaasadeeyo biyaha wax oo dhan siyaasadeeyay waa qolada countiga khaladku waxaan isleeyahay aniga waxaa iska leh qolada countiga aadan bare shaqadiisa iyo doorkiisa uu haystaa in la isu imaado la tafatiro laakiin ninba meel intuu fariisto inuu ka hadlo ay gacmaha isku taagtaagaan kolley aad baa looga fiican kaliya tan countiga aad ku soo celisay inay qaladaad leeyihiin oo maaragtay durdureel ay jiraan marka laga soo tago tii dowladda dhexe looga baahnaa u baahnaa dadka reer Gaarisa iyo dhammaan deegaanada ismaamulka Gaarisa ma helaan runtii dowladda dhexe dee waxa nooga maqan waa waxbarashadii horta waxbarashadana waa la helaa waxa kaloo kusoo maqan dee waa security oo ciidan dhankeeda ah wixii kaloo dhan laakiin countiyada loo wareejiyay dowladda federaalka inay kula xisaabtanto amnigaana ay sugto lacagihii dhanba wixii baadaa lagu soo dhiibay 7 bilyan haddii sanadka adiga meesha ay imaanayso dowladda county waxa kaaga maqan maxay federaalka wax kaaga maqan mala national government wixii way soo gudbisay adeega waxa la raba inuu muujiyo marka waa qolada countiga federaalka marka doorkooda oo hadda odaygan senatorka aan soo doorano Yusuf Xaaji iyo dadkan doorkooda waxa weeyaan in countigii la xisaabtamo isla xisaabtan adag inay imaato waxaan 7 bilyan meesha ay marayso in loo ogaado wasaaradaha musuq maasuq ku jiro in loo ogaado qoladan xildhibaanada aan dooranay ee shaqadooda gabay ee aan waxba kala ogeyn macal speakerka wada musuq maasuqa ah in laftirkooda la xisaabtamo oo la ogaado yaa muhiimada maxaad ka dhawaajisay in musuq maasuq iyo mas'uuliyiinta qaar aad magacdowdana oo iyagana horay waraysiyaal u bixiyeen ku sheegeen in ay ka fog yihiin waxyaabaha aad hadda ku tilmaamayso maxaad ku cadeyn kartaa in waxaasi ay sameeyaan iyagu
wallahi way caddahay inay sameeyaan taa caddeynteeda iyo dabagalkeedana kolley mid aniga hadda ii taalo maaha. Shaqada dad baa iskale iyo EACC da iskale, qolada anti corruption musuq maasuqa la dagaalanto yaa iskale. laakiin way caddahayo wixii haddii budgetka sanad una dhaafe sanad labaad uu marayo jid la hagaajiye aanan jirin, maxay ahayd biyo aanan jirin, oo hadda inta aan isleeyahay wax unbaa wax laga qabta caafimaad ay tahay. Saanguro kale hadda isbitaalkeeda waa laga soo cabaadayay, subcountiyada Huluuq oo kale iyo Lagdheere iyo dhammaan meelo badan oo caafimaadka uusan si fiican u gaarin oo laga cabaadaya jirto. Inkastoo waxa sidaa ay tahay meelaha hadda countiga ay ku faantami karto ay isdhihi karto waxbaan ka qabtay ay tahay maxaa la oran jiray caafimaadka, laakiin waxa sidaa ay tahay haddana biyo la-aantan maxaa keenayo? Lacagtii biyaha dadka loogu gelin lahaa la sameyn lahaa musuq maasuq waa ku jiro. waa in la baaro meesha waxa ka qurmay oo dhibka ka jiro, waa in la baaro. adiga waxaad ka mid tahay ururada dhalinyarada ee ka jira countiga Garissa. urur ka mid ah ayaa mas-uul ka tahay. ururadiina dhalinyarada intaad isu tagtaan waxa garadka iyo maaragtay aada la fadhiisataan dadkii deegaanada maaragtay uqaashi ahaa dhanka haweenka, ururada haweenka mas-uuliyiintooda iskugu yeertaan, aada wada fadhiisataan, kadib intaad u yeertaan maaragtay golihii dhexe aan ilaahda xildhibaanadii deegaanka MCA-yada mas-uuliyiintooda ugu sarreeyey ee ahayd mataqaanaa speakerkoodii iyo aada u yeertaan maamulkii dowladdii dhexe iyo maaragtay wasiiradii qaar aada u tagtaan, aada dhahdaan warsaan naguma habboonay saan aan sameyn maxaa idin diiday? wallaahi horta annaga dhalinta haddaan nahay ururada dhalinta waan isku xirannahay inta badan, inkastoo jirto dee magaaladii aada moodo xoogo in dadkii siyaasad ahaan lagu kala qaybsan yahay, haddana aada moodo in wixii qabiil iyo Soomaalidu dee qabiil baynan ka dhamaanin, wixii wax lagu soo doorto iska qabiil uu noqday, qofku waxtarkiisa iyo horumarkii uu sameyn lahaa iyo aanan loo fiirinin. Shaqo haddii qof la qoraya hataa ama wasiir laga dhigayo wax walba laga dhigayo loo fiirinin kartiya aqoon iyo inuu wixii serviceki la rabay soo deliver garayn karo loo fiirinayo qofkii qabiil iyo shakhsi iyo mansab iyo magac iyo meesha kasoo jeeda. waxa sidaa ay tahay haddana dhalintu ma daasho oo doorkooda way ciyaaraan, way qayliyaan. waxa keliya ay ku qayliyaan hub u isticmaalaanna waa social mediada iyo aada ugu qayliyaan kuna hadlaan biyo la-aanta jirto iyo cabashada jirto iyo dhibabka waa lagu hadlaa social media, aada looga hadlaa. laakiin in lala kulmo maxay ahayd MCA ama governor telephone badan lagaa qabanayo sidaad la kulmo xiriir ma laha. dadkii soo doortay dib walba way ka cararaan dadkooda, dadkii soo doortay in ay la hadlaan, la fariistaan, wax soo gudbiyaan diyaar uma ah. gaari hadduu kugu agmarayo muraayaduhu dalacanaya, biyo la-aan hadday jirto telephone u dirto kaama qabanayo, text message daa u sirto kuma soo jawaabayo. intaasoo mar baan isku dayna inaan xiriir la sameyno, la hadalno, ka yaabin haddii xaruntooda aad damacdo inaad tagtana dee qofku isaga shaksiga u ballamiyey mooyaane appointment leleh looma geli karo oo wixii way kala xiran tahay. governor baa loo geli karin laakiin waxa cabashada lagu muujiyo hadda waa social media. haddii dee arrintan biyaha ay sii socotana banaanbaxyaa imaan doono, in la dibadbaxaa imaan doonto, in dadkii gabdhihii caagaday banaanada wataan, waxyaabahaas oo dhan way soo bixi doonaan oo way imaan doontaa in dadku isu imaadaan oo la iswareysto. ilaan dadku waa la daalay, hadda waa la daali, intan ka badanna lama dulqaadan karo biyaha because 3 bilood oo u hore buu yiri 100 maalmood 3 bilood iyo 10 casho ilaa haddana wax biyo laga qabtay malaha. marka sanadii wax weyn hadda 2 sano way dhamaystay, dowladda bay maraysaa, way imaan doontaa in la isla xisaabtamo, xafiisyada la iskugu soo qaraaco, la isugu yimaado, qasab way imaan doontaa taa iyada. tan biyo la-aanta aad kusoo celcelisay cali bunow hadda xilli muddo ayuu xil ku jiraa oo maaragtay almost wuxuu kusii siqayaa gabagabo oo waxyaa kala barkii waa u gaaray xilli maaragtay xilli xileedkiisa markii loo fiiriyo kala barkii waa u gaaray. ma jiraan wax mudaaharaadyo oo horey u dhacay oo macnaha looga soo horjeedo cali bunow oo magaalada Garissa shacabkeedii inta isu soo bax sameeyay xafiiskiisii oo hor yimaadeen ay leeyihiin mas-uulkani waxba nooma qabanin, annaga waxaan u baahannahay inuu is-casilo kadibna uu baxo ama biyihii wax uu ka qabto. inta badan mas-uuliyiin ayaa ku eedeeyaan in maaragtay biyaha aan waxba laga qabanin. tii shacabkii iyadu maxaa loo soo gudbin layahay oo caddeyn in biyo la-aanta ay jira loo soo bandhigi layahay? wallaahi shacabku laftirkooda way jiraan meelo isumayna soo banaan bixin. mar way jirtay buuladan hadda buula Tawakal iyo buula Missouri, horta labada xaafadoo baahida ugu daran qabo. dadkaas hadda waxaan isleeyahay mar waliba dhowrka bishiiba waxay shubtaan booyad biyo oo 5,000 oo shilin baa laga qaadaa bil waliba, qoys waliba calaa qoys bil waliba booyad bay ku shubtaan. hataa mararka qaar waxaad arkaysaa dadka meesha guryaha ka dhistay yaa qaar guryihii wax u dago
oo dad ay dib uga kireystaan bay leeyihiin oo waxa keenayana waxaa weeye waa zone wuxuu noqday no entry zone oon la geli karin oo biyo la-aan oo loo geli lahay marka buula tawakal dadkeedi way jireen caagaday soo qaateen governorka markaa muusan joogin waxaa markhaati ka ahaa maalin inay yimaadeen xarunta biyaha oo kambanigan la yihahdo gawaasku meeshooda ay yimaadeen ay ku mudaaharaadeen mudaaharaad ay ku sameeyeen baa jirtay halkaa bay isugu yimaadeen lamana wax cabashadoodii laga qabtay ilaa iyo waqtilxaadirkan la joogo buula masuuri waa meesha ugu baahi badan ilaa haddana biyahaana gaarin mar walbana la dhaho bisha dambaa wax laga qabani bisha dambaa wax laga qabani marka shacabku way jirtaa marmar idaacadihiinan iyo idaacado kale ay tageen buula masuuri s t m baa xasuustaa hataa mar tagtay maamooyin buula raxmo la tagay waraysiye laga qaaday lasoo duubay social media waa la wadageliyay national government way aragtaa waxoo dhan county government way aragtaa cid laakiin waxay noqotay wax siyaasad laisku hardiyo oo dadkii oon biyo ba haynin yaa lagu dhihi biyo way jiraano waa la siyaasadeynayaa waxaas dumarka waa lasoo adeegsadaa xaqiiqda laakiin inaan biyo jirin baa ma laba buulo keli ayaa biyo la-aan marka maya laba buulo keli biyo la-aan waxaa inta badan kusoo celcelinaysaa inay buulo masuuri iyo buulo kale baahida u badan yacni 10 sane dowladda countiga ay ka jirtay wadankan 2013 ilaa hadda 2 sane midan waa 7 sano 7 sano buulo masuuri buulo tawakal buulo raxmo buulo sambul waa biyo la-aan waa buulooyin isku xiriirsan dhowra ilaa buulo sagaaro kor waa biyo la-aan inta kalena waxaa weeye biyadee mar waxaa laga yaabaa 10 beri 15 beri 6 maalmood usbuucii hal mar inay usoo dhacaan oo dadkii caagada kayd laga yaabo inay ku shubtaan wax un marmar soo dhaco laakiin biyo talantaali oo toos ah ma jiraan dowladda nadiif maadaama ay 10 sano ahaayeen dowladdii ka horreysay dowladdani uu hogaaminayay nadiif sidan oo kale ayay bila-aanta say u jirtay sida hadda ka dhawaajisay balse eedeymaha hadda sida isdaba jooga cali bunow loogu soo jeedinayo looguma soo jeedinayo nadiif farqiga u dhexeeya muxuu yahay marka labada gafan waa loo soo jeedin jiray runtii nadiif mar aan loo soo jeedinin ma laha inkastoo isaga uu hal kaga duwan yahay oo maxkamado ay ku socotay oo khilaafyo kale uu jiro waxyaabo kale oo siyaasadaysi ay jirtay waxa sidaa ay tahay haddana dhaleecaynta iyo eedeynta biyaha mar walba way jirtay midda kale hataa waxaa jirtay shacab isu soo bax badan mudaaharaadyo badan oo xafiis countiga hortiisa lagu sameeyey governorka nadiif waxoo dhan baa jiray waa lagu eedeyn jiray waxun baan ka qabani buu lahaa waa la siyaasadeeya buu lahaa waxyaabaha aan ku ridnay nadiif oo ku dhacay biyaha darteed bay ahayd kiina hadda wadadii unbuu hayaa lasadi hadda hadduu cali bunow 2 sano dhiman ama maaragtay xilli sanadeedkiisa ka dhiman xilli xileedkiisa sanadaha ka dhiman haddii uu wax ka qabto oo maaragtay biyihii isbedel ku keeno macquul ma tahay dib inaad usoo doorataan mar kale wallaahi caano daato waxay dhahaan soomaalidu dabaqabashay leeyihin hadduu wax ka qabto oo baahida ugu badan waa biyaha iyo hadduu wax ka qabto caafimaadka wax ka qabto baahida hadduu daboolo question kama taagno in uu saa ani isleeyahay waa un aniga kolley shacabkay u taallaa doorashada laakiin anu waxaan isleeyahay qofkii wax qabto uu soo noqon waxaad ka dhawaajisay in markii qof la dooranayo inta badan qabaa'ille ama madiixin loo dhiibayo reer hebel ahaan loogu dhiibo doorashada kenya inta badan waxaa waaye qof iyo cod reer gaarisa markay soo dooranayeen mciyada hadda inta badan eedeynta usoo jeedinaysay ee ahaa inay seexdeen soo ma ahayn ayaga inay soo doortaan qofkii ku habboon kursigaasi oo iyaga wax u qaban kara runtii haa way ahayd inay soo doortaan laakiin haddana dee alla ma qorin maynan sameynin shacabkana kolley hadda way arkaan oo aan u jeedinayaa kolley waa wax laga fiirsan doono mciyadana waxaad moodaa doorkii hore doorkan bayba ka damsan yihiinba hadday hurdaanba xilligii nadiif iyaba niman ka yara dhaqaaqroon oo maraa mooshinaan keenayna ay dhahaan iyo mar ay yara socdaan iyo mid hadlo iyo governaagii mid baa isku dhacay la dhaho iyo cabasho iyo dadkooda wax utuma iskugu dhacay laakiin kuwan waxaad moodaa kuwan santuuq lagu aruuriyey oo nimankan waa niman aan macnaheeda marka ma waxay tahay in aad u baahneen shacabka reer gaarisa iyo ururada dhalinyarada mas-uuliyiintooda haddaad tihiin in mciyada iyo dowladda maaragtay countiga iska hor imaadaan khilaafyo aad aragtaan sida aad ka dhawaajisa hadda mciyadii hore oo kale ee dhahaan mooshinaan keenaynaa la dagaalaan gafanihii khilaafyaadkaas ka dhac miyaad dooneyseen khilaafyaadkaas khilaaf bas laguma tilmaami karo waxay ka mid noqon kartaa inuu mcagii uu danqashadaadii ama wixii adiga aad qabtay dareenkaagii uu kugu mathalay inuu ka hadli karo ama aan isleeyahay ay noqon karto mcaga inuu la xisaabtan cad uu sameynayo ila la xisaabtan markuu sameeyo way dhacaysaa oo laga hor imaado
oo wixii uu dadkii u tabanayey ama governorgii ayagaa la xisaabtamay sidii loogu talagalay oo mashruuca inuu usoo gudbiye ahayd ama servicekii dadkii uu lahaa hadduu sameyn waaye ayagaa la rabaa inay la xisaabtamaan malihii inay mooshin keenaan malihii wax kale laakiin guddi baa jiro hataa MCA-yada laftirkooda oo biyaha u xilsaaran guddigii oo hadlayo ma jiro guddigii oo wasiirka u yeerayo saamoon garaynayo la hadlayaan ma jirto somehow qolada MCA-yada aqoon darina way jirtaa oo rag aanan aqoon badnayn oonan doorkoodu aqoonin yaa horta lasoo doortay inta badan iyadoo aqoon yarida ay jirto haddana niman musuqmaasuq iska dilooday oo meel inta lagu xareeyey amar un iska qaadanayaad moodaa oo shaqaalowna iska ah oo meel ku xareysan laakiin nimanka MCA-yada shacabka aan lehed hadda may soo banaan baxaan waxaa ka haboon 1000 shacab inay soo baxdo waxaa ka haboon 5 MCA oo press conference qabato meel fadhiisato tan MCA-yada in dowladda cadaadis ku saaraan in ay biyo hesho in ay wax helaan soo lagama yaabo qaab kaloo idinka inaan ogeyn in ay dowladda county wax ugu gudbiyaan oo qoraale iyo fariimo iyo qaab kale ay wax u gudbiyaan soo macquul ma wallaahi ma aragno anse qaarkooda yaaba leba soo maaha biyihii waa la helaa magaalada marka taasaa ku cadaynaysaba in uusan waxba shaksigan uu gudbinaynin cabasho uunan gudbinaynin waxba uunan ka hadlaynin waxaan isleeyahay 100% wax cabasho hadda ay gudbiyaan ama ay ka hadlaan ma jirto waa un dhowr MCA meesha ku xareysan afhayeenka baarlamaanka oo meesha macalin u ah isagana oo maxay ahayd wixii dadkii iyo shaqadii loogu talagalay aad moodo MCA-yada inuu ka habaabinayo ka wareejiyo dana gaara uu sameynayo lafsadii marka kolley musuqmaasuqa iyo waxa in wax badan laga qabto oo shacabka loo iftiimiyo marka afhayeenka baarlamaanka aad ku tilmaamtay in uu dadkii shaqooyinkii asaga ka hortaagan yahay MCA-yada asaga dadkii soo doortay meeshuu ka soo jeeday deegaanku ka soo galay mas-uuliyadda soo county ma aha Garissa wallaahi nin lasoo doortay ma aha MCA-gu ka madax banaan yahay xildhibaanadu waxaad moodaa in maxay ahayd qoladan maxaad moodaa MCA-yadu yaa doorani ayaga dhexdooda qof lasoo doortayna wuu noqon karaa laakiin Semberi inta badan sidii speakerka hore afhayeenka hore u ahaa oo kale waa qof banaanka ka yimaado oo ninkan hadda nin lasoo doortay ma wuxuu ahaa nin degmada Ijaara kursiga Ijaara 5 sano hore ku jiray 2013 ilaa MCA nimo kumuusan jirin xildhibaanka baarlamaanka federaalku ah Bishaar baa la yiraahdaa gabadha hadda Safiya ka guuleysatay isaga hadda afhayeen u noqday isagaana ka experience-san oo hadda nimankan MCA-yada oo federaalka la soo shaqeeyo meesha xukumo isagina waxaad moodaa nin wax loo yeerinayo oo wixii la rabay iyo dantii la rabay iyo sidii ay ahayd aanan la qabanaynin MCA-yadana maxay ahayd nin madaxa uga taagan oo danihii la qaban lahaa iyo wixii la qaban lahaa aan si fiican uga fulinaynin aad moodaa magaalada Garissa oo kaliya ma aha county-ga Garissa markii la yiraahdo kan maamul ahaan dowladda meesha ay maamuleyso aad bay u tiro badan yihiin deegaano badan ayaa jira oo county ama maaragtay degmooyin ayaa jiro ka tirsan tusaale ahaan degmooyinka dhanka xuduudda xiga ee degmada Dadaab ama Faafi oo kale waxaa jira mas'uuliyiin iyaguna halkaas ka soo gala degmooyinkaas mana gaarsiiyo waxay u baahnayeen wallahi inta badan maya Garissa baa wax gaari laaba degmooyinka kolley inkastoo governorka hadda lacag maalin hore Wali Bangalore uu lahaa ilaa sub county walba ilaa board walba ilaa ward walba yaan gaarsiinayna kolley waan ogaani doonaa siday wax ku gaarto waabaan u joognaa oo waxyaabaha hadda horumarada laga filayo inuu qabtay kamid tahay laakiin dadkii meesha ka soo doortay maysan gaarin waana meelaha sub county-yada de hadda Balambala sub county oo kale Lagdera maxaa la oran jiray Dadaab Faafi Huluuqa sub county Masalani intaba service sida loogu talagalay ma gaaro de maba gaari karo meesha Garissa uu servicekeeda yar yahay waxaan isleeyahay meelaha kale way adag tahay dadkii u hadli lahaa ama qaylin lahaa ama ka hadli lahaa waxa weeyaan nimanka MCA-yada mid haddii laga yaabo inuu hataa kuwa meelaha fofo ka yimaada hadda sub county-yada oo kale mid hadiiba laga yaabo inuu ka hadli lahaa ama caroon lahaa waa shaksi keligii wuxuu u baahan yahay group ama xulufo ama dad badan oo dhibaatada la dareemayo
oo la rabo inay kasoo qaadaan dhibaatada subcountiga ka jirto inay meeshoodana ka jirto kale woodkooda wixii ka jiro inay halkan ka jirto kale inay dareemaan isu kaashadaan oo dhibka proposalkiisii wax looga qaban lahaa ay committee ahaan ama governorka u gudbiyaan runtii intaba way gabeen dad sameynaya kaliya shacabka kenyaanka ah kuma sugno countiga Garissa waxaa jira dad qaxooti ah ayaga Soomaaliya ka soo qaxay muddo dhowr iyo 20 sano ah halkan qaxooti ku ah degmada Dadaab iyo Faafi dadkaasi ayaga markii dadkii countiga asal ahaan kenyaanka ahaa Soomaalida u dhashay jinsiyan markii ay waayaan xuquuqdii ay lahaayeen dadka qaxootiga maxaa laga filan karaa marka wallahi dadka qaxootiga horta waxaan u maleyn waxaan isleeyahay mas'uuliyadeeda horta UN bay saaran tahay oo dad hadda Kenyaan ama aha mas'uuliyadoodana county ma saarno kaliya countiga inuu maxay ahayd UN-ka iyo wixii ay wax u qabanayso iyo hay-adaha iyo saan loola xisaabtamo laakiin hadda waxaan isleeyahay kolley hadee UN unbay kolley sidaan isleeyahay inta aan aqoonta uga leeyahay UN unbay qolada ilaahay kasoo ka kafaala qaaday ayaga unbayna wixii xisaabtankooda iyo wixii loo qaban karay u taala countiga kaliya wixii sharciga ay diiga haysto Kenyana unbay shaqo ku leedahay dadka kale hadda wax ka gaar saameyn ma laga yaabaa in ay ku yeelato haddii ay badato dooda mas'uuliyiinta gobolka waqooyi bari khaasatan countiga Garissa haddii ay badato mas'uuliyiintooda inay isqabqabsadaan dadkaasi macquul ma tahay in ayagu saameyn ku yeelato dabcan ha way ku yeelan qasab way ku yeelan maxaa yeelay dadka u shaqeynaya waa dad countiga ka soo jeedo hay-adihii laftirkoodu national government iyo county government bay yay macaamilo la wada leeyihiin la xiriirsan yihiin wada shaqeyn ka dhexaysa dee dadkii wada shaqeynta idinka dhexaysay haddii uu servicekooda xumaado oo isku dhacna yimaado kolley taa laftirkeeda way liidanaysaa qasab saameyn way ku yeelanaysaa dhankay noqotaba ahaato dhanka xildhibaanada dowladda dhexe ee federaalka markii aynu eegno cabdikariin oo kasoo gala Faafi iyo maaragtay xildhibaano kale iyo xildhibaano uu hogaaminayo mudane aadan barre ducaale ayaa countiga la kala safan oo kuwana eedan ay usoo jeedinayaan halka kuwa kalena ay difaacayaan markii mas'uuliyiintii dowladda dhexe ku matalaysay countiga ayagu iskhilaafaan countigina khilaafku ka dhex jiro ayaha muxuu noqon karaa marka reer Garissa wallahi ayaha reer Garissa horta meesha laba dibi isku hardiyaan bay tiraa Soomaalida cooska ku burburo shacabkii baa horta meesha horta ku dhamaanaya oo masiirkoodii ku baaba'aya meeshan haykal dowlad inay lahaato oo maqaam iyo wax isku toosan ay uu ka jiro horta waa muhiim labada dhinacna dadkii baa soo wada doorto kolley dadku waxay ku jirtaa in la isla shaqeeyo la isfahmo dialogue la yeesho la wada fariisto la wada hadlo way jirtaa haddana kolley xilli ramadaanan ku jirnaa waxaanan isleeyahay kolley nin walba eeda loo soo jeediyo iyo tabashada uuna arki doonaa uuna maqli doonaa laakiin waxaan door bidayaa annahan isleeyahay oonan ka rajabeelin in ultimo gabagabada la isu imaan doono lana wada hadli doono danta shacabkana laga shaqeyn doono laakiin arinta kala qaybsanaanta hadda shacabkii saameyn bay ku leedahay hadday sii socoto oo ilaa iyo doorashada kale 2022 inta laga gaaray ay sii jiiteentana dee waxay noqoni wax developmentigan Kenya ka jiro iyo lacagahan hadda noo imaanayo countiga ah mid aan looga faa'iideysanin oo dib loo noqdo Kenya oo dhan dib looga haray noqon doonto saameyn adag bay yeelan mas'uuliyiinta countiga Garissa markii la fiiriyo Ali bin Oqorane oo madaxweynaha maamulka madaxweynaha ismaamulka Garissa dowladda uu hogaamiyo iyo markii laga soo tago golahiisa baarlamaanka iyo wasiirada waxaa jira xildhibaano ayagu ku matala dowladda dhexe oo tiro ah waxaa jira kursigii haweenka lagu matalayay oo maaragtay maamulka Garissa ka soo galo waxaa jira senator Soomaaliya in mas'uuliyiintaasi sare ay wada fadhiistaan ay go'aan sameeyaan kadib mudane Ali Bunow iyo mas'uuliyiinta uu hogaamiyo meel dhexe iskugu imaadaan ها waa muhiim wax la rabay in ay sameeyaan laakiin waxaad moodaa tilaabada inay ka gaabiyeen aynan sameynaynin laakiin haddana waan faraynaa in ay sameeyaan oo dadka walaalada la isku keeno oo la wada hadlo oo dadka shacabka sida loogu adeegi lahaa wax la qabto waa wanaag waxaa jooga odaygan adeerkeenan soo dooranay senatorka ah Soomaaliga hadda maqaamka ugu sare ka gaaray Kenya uu isaga yahay wax badan oo uu soo qabtay kolley labada garab uu la kala kulmay calina mar uu la kulmay aadan barana mar xafiiskiisa kula kulmay waana odaygu building bridge kana hadda uu u xil saaran yahay oo
nabadeynta iyo isukeynta iyo xalinta khilaafaadka Kenya oo dhan buuba hadda chairman u yahayba. marka waxaan isleeyahay kolley waanteeda kolley hadda ramadaana naga soo dhexgalay inuu wadaan aaminsanahay uuna wadi doono dadkana la isu keeni doono lagana wada hadli doono. kolley taa lagama quusanin. gabadha women reebkana wayba ka hadashay oo kilibyaa laga hayaa laftirkeedu ay leedahay dadku annagaa soo dooranay ha la isu keeno ha lala wada hadlo ha la heshiisiiyo waxyaaba nooca ay leedahay doorkeeda way ka qaadatay. cabdikariin faafi laga soo doorto waxaad moodaa mararka qaar inuu aflagaado iyo waxyaabo uu iskala fariisto meelo qaar mana habboona. arrin fiicanna ma aha. saan isleeyahay in dadku walaalka isu imaado oo far aan laisku taagtaagin oo la hadlo qofna uu ka caroonin oo dee sida hadda countiga oo kale lagu eedeeyey waxaasaad qaban waysayna waxaa qabta waa muhim. aadan bari lafsadiisu wuxuu qaban waayay in loo sheego oo la yidhaahdo waxaasaad qaban waysay waxaa qabo. laakiin annagaa naloo jeedaay annagaa sidan iyo waxa iyada ma shaqaynayso. qofka dhibic loogama dabcin karo wixii dadku ay shacabka u lahaayeen xaq adeega uu fulin waayey qofka in lagu xisaabtamo waa mid meesha ku jirto laazim. aadan bare keliya ma aha aan idhaahdee cabdikariin keliya ma aha waxa maaragtay hadallo kulul ama dhaleecin saxaafadda soo mariyay ama social media nooc waliba ay tahay. waxaa jira dhammaan mas-uuliyiintu in ayaan hore hadallo kulul ay isweydaarsanayeen isla markaasina nin waliba uu ninka kale waxba u yaraysanin oo ay jirtay aydan aan loo kala harin in dusha la iskaga tuurayay. marka cabdikariin keliya maysan ahayn soo dhammaan saameyn kuma yeelan karta marka hadalladaasi mas-uuliyiintii dadka ugu sarreysay hogaaminaya markay isu adeegsadaan. ha way ku yeelan kartaa. kolley hadallada kulul laba qof bay dhex marto. hadda cali wax hadal kulul oo kasoo baxay oo aflagaada ah ma jirin. laakiin labada qof ee hadallada kulul isweydaarsaday aadan iyo waxay ahaayeen cabdikariin. aadanna marka hore wixii uun kasoo baxay iyo hadaladii uu dhahay kadib uu ka gaabsado uu ka aamusay. laakiin cabdikariin buu ahaa nin maalin meel guri iyo wax lagu burburiyey intuu tagay sii waday mar walbana wadwado mana haboono taa lafsadeedu. kolley waxaan isleeyahay hadda shaksiga un la dhihi karo hadda hadaladii ugu dambeeyay oo aflagaadada afkiis kasoo baxeen inta aan xasuusto kolley cabdikariin buu ahaa. cabdikariin deegaanka laga soo doortay faafi ma jiro maaragtay eedeyn weyn iyo dhibaatooyin hadda isdaba taagan oo isheesasho kama jirto kadibna ahaan markii la fiiriyo. balse degmadii Gaarisa oo laga soo doortay aadan bare ay sahileynta ugu badan ka jirta oo cabashada ugu badan ay ka taagan tahay. Soomaha marka asaga inuusan fiirinin deegaankaasi cabdikariin ilaa iyo xagga inuusan intii isu jawaabid lagu mashquul lahaa aadan bare soo lama gudboono in uu Gaarisa bal hoos u fiiriyo sida xaaladda Gaarisa loo qaboojin lahaa. laftirkeeda ishaysashadu waxay ka jirto horta ma aha dhinaca aadan bare oo isaga shaqadiisa ahaan isqabsasho kama imaanin. waxay ka imaatay waxay ahayd war ani tayda waan qabtay dadkii maad biyo siisaan. midda Gaarisa magaalada markay imaatana waa mid dadka dhan ka dhaxayso. maxaa la yiraahdaa balanbala qayle kama jirto faafi qayle kama jirto ijaara qayle kama jirto dhadhaab qayle kama jirto waa kuwa fogfog. tan waxay uga jirta laakiin waa dad waa centerki waa sida hadda Nairobi oo kale haddii Mwingi dib ka jirin Mombasa dib ka jirin meelo kale dib ka jirin laakiin hadal hayn iyo wax lagu hadlo mar walba Nairobi ka jira waxa keenaya maxay tahay waa caasimadii la isugu imaaday. tan marka aadan bare iyadoo uu ka yahay xildhibaan haddana waxa sidaa ay tahay waa headquarterki waa magaaladii kuwan dhan ay hoos imaanayeen countiga ahaan laga maamulay. marka aadan bare wuxuu ku andacoonay waxaa weeye war magaaladan aniga liiga soo doorto biyaha ka xaqabtira oo aan wax u qabano oo aan maxay ahayd magaalada iyada ah aan waxtar u sameyno oo maxay ahayd magaaladan iyada ah aan horumarino. magaaladana waa magaalo weyn oo bilaaratay in wax laga qabto mashruuca ugu badan iyada la geliyo. kolley taasaa muhiima. midiisa kale cabdikariin waa faafi waa meel Gaaris ka baxsan meelaha subcountiyada dhanba dee dadka laga soo doortay wax qayle kasoo jirta malaha kuwan buu lamid yahay uu la qaba kolley. marka iyadoo deegaanadii kale aysan dhib ka jirin caasimadii dhexe maxaa dhib ka riday? waxa ka keenay waa biyo la-aantan iyo dadkii oo populationkii u badan. waxaa keenay dadkii meeshii ay ku nasanayeen magaaladii loo badnaa population ahaan loo badnaa waa iyada. maxaa waxaan isleeyahay hadda subcountiyada kale dadkeeda haddii la isku daro iyo haddii Gaarisa county magaalada keliya inta degan la xisaabo inta magaalada bas ka badan
inta sub county oo kale haddii la isku daro populationkeeda iyo inta deganaa ka badan magaalada Garis waa meel populationkeeda aad u badan yahay Soomaaliya oo dhan ku idishahay wada degan tahay marka meeshaas dulduleel baa ka imaani dulduleelka ka imaado marka waxay saameyn ku yeelani countigana way ku yeelani ninka laga soo dartay xildhibaanka ahaa ee u matalaya iyadana national government majority leaderkana way ku yeelani marka in dadka iyaga ah laftirkoodu ay maxaa la oran jiray ay wada shaqayn rasmi ah ay ka dhex imaato oo iyaga laftirkoodu ay intay hoos isula hadlaan wax looga qabto waa muhim maxaa yeelay haddii magaaladan weyn ay qoranto dee kuwa kalena saameyn ay ku yeelana way qurmaysaa laftirkeeda markii la fiiriyo siyaasadda guud ahaan dalka Kenya haddii aan kasoo bilowno Yusuf Xaaji oo ah mas-uul inta badan dowladda Kenya haddii ay noqoto xushmad weyn looga hayo wax badan soo qabtay caanka ah Farax Macalin oo isagana sidoo kale ah Aadan Barre oo isagana mas-uul ah markii magac ahaan loo fiiriyo dadka Soomaalida ee maaragtay Kenya magacyada waaweyn ku leh waa dadka inta badan countiga Garis ka soo jeeda oo deegaanada countigaas ka soo gala isla markaasina maqaam sare siyaasadda dalka Kenya ka gaaray soo ceeb ma aha marka in iyadoo dadkaasi maaragtay role modelka oo lagu dayanayo ay jiraan haddana ay dhacdo in qulqulatooyin yaryar la isku qabsado oo mas-uuliyadda qaar ilaa iyo heer maaragtay ay gaaraan maamooyinka xaafadaha ku sugnaa khilaafkooda inuu gaaro soo lagama fiicno waa laga fiican yahay runtii horta waxaan waa iska siyaasadana waxay wadataa iska hirkeeda iyo dhibkeeda iyo mashaakilkeeda iska wadataa wayna ahayd in inta laga foojignaado waxaan la xaliyo oo la wada yimaado kolley waxaan isleeyahay haddana sida hadday hadalka baan kugu sheegay lama quusanino in laysu imaan doono masiirka dadka laga wada hadli doono waa qasab way dhici doontaa waxaad moodaa hadda in xoogoo la kala yara madax adag yahay oo nin batiisa ay la quman tahay laakiin taasi ma dhici doonto waa laysu imaan doonaa meeshan baahida jirto waa lagu khasbanaan doonaa in wax laga qabto dee baahida jirto haddaan wax laga qabaninna dee ciddi baahida aan wax ka qabanin waa un tegi doorashada soo socoto inay ku galbani laba isma weydinayso nadiif baa doorashadii hore biyihii 5 sano ku jiray fursad u haystay waxba ka qaban waayay wuu ku tagay biyaheedu wuxuu ku tagay haddana haddii adeegii biyihii ay noqoto dhibka meesha ka jiro dee qofkii ku xigan isagana uu ka tago maaslee misleedahay haddii odayaasha kasoo maaragtay maqaamka siyaasadeed kule dalkani Kenya iyo Yusuf Xaaji iyo Aadan Barre hadalkooda la maqlo in Garis ay wax iska bedeli lahayd boqolkiiba boqol maxaa yeelay dadkan dad baa usoo dhaartay dad baa matalaya waxaan isleeyahay haddii nimanka iyaga ah ay inta wada hadlaan isu yimaadaan alla ka cabsi la sameeyo dantii shacabka iyo wixii loo doortay laga wada hadlo la isugu yimaado ayaguna ay si wanaagsan uga hadlaan ayagoo gacmaha isku duuban dadkii dee way ku farxayaanoo in adeeg iyo wax loo soo gudbiyey yay u arkayaan dadkana hadalkooda way maqleen Garis markaad fiiriso bilic ahaan sanadihii ugu dambeeyay aad ay usoo kabanaysay dhanka dhismooyinka markii magaalada dhex marto wadooyinka naftirkeed wax badan ayaa laga qabtay howlahaas dhan yaa qabtay wadooyinka iyo hadda ninka wax ka qabtay horta waa Aadan Barre wada markay imaato qofka ku amaanan wax ka qabtay Garis markuu soo galay in fact waxaan leeyahay waxba laami ma jiro magaaladii oo dhan hadda laami buu ka dhigay Booleyftin ilaa iyo meesha Buule Orgel loo jidka aado waa laami ilaa iyo Paulighting jidka aado waa laami Harta Baashaal jidka aado magaalada intuu ka baxo ilaa iyo Buule Masalan Harta Baashaal aado waa laami oo mar dhow la ebiyo la dhameeyay Buule Jara dhankeeda ilaa Madiina isagana waxaa ku eg waa laami county high gadaasheeda oo jidka Harta Baashaal isku xiray waa laami intaasoo laami Aadan Barre qabtay lightka hataa jidadka waxa suray waagii hore national government intuu ka soo qaaday keenay Aadan Barre ah CDF tu wax badan buu kaga qabtay isagoo hadda wax Aadan Barre la dhihi karo wax maad qabanin iyadoo uma taalaba wax maad qabanin wax la dhaho buug ugu ma qorna Aadan Barre wax buu qabtay wax badan buu qabtay masaakiin badan buu caawiyay waxaan isleeyahay kulli inta uu qabtana ajir Allah ka siiyo waana wax lagu lahaa waa waajibaad lagu lahaa uu gutay waata haddii kulli Aadan Barre qabtay wadooyinkii lightkii dowladda maxay qabatay marka dowladda kolley jidad iyo markii la dhaho waxba kama qabato county wax jid ay wax ka qabato malaha awoodooda ma tahay inay wax ka qabtaan waa shaqadooda weeyaan way tahay inay wax ka qabtaan
sababta u diiday maxay tahay marka kolley musuq maasuq waa u diiday dowladda hadda muddo ayay jirtaa waxaad sheegtay in maaragtay waxba aysan qaban macnaheedu ma waxay tahay maalinkii lasoo doortay ilaa hadda dowladda countiga gacan maysan qaadin oo meel ayay iska fadhidaa kolley meel ay gacan ka qaada way jirtaa laba meel oo haddaan isleeyahay meel dhismaa ku socdo oo hadda emergencyga oo isbitaalka dhismaa ku socdo maternityda waxbaa laga qabtay iyadana waa la yara dhisay waxaa kaloo la sameynayaa oo dowladda nadiif kiraa lagu wada jiray tan lafteedu hadda kiray ku jirta waxaa wax laga qabtay countiga headquarterka yaa guri weyn oo dabaqa hadda loo sameynaya oo mudane cali uu booqday maalin hore guriga isaga ah haddii la dhammaystiro waxaa isugu imaan doono wasaaradaha dowliga oo dhan oo Garissa County dhammaan way isugu wada imaan doonaan marka middaa iyo hadda emergency oo caafimaadka ah mooyaane hadda wax kale wax laga qabtoon xasuusano Soomaha marka in dowladda countiga in yar ay wax u qabanayso in laga dhow sugaa maadaama caafimaadka ay wax ka qabatay ismooyinkii dowladda ay ku shaqeyn lahayd in ay hadda wado wax ka qabadkeeda biyahan inay u maanayso Soomaa marka in laga sugo wallahi de dhismada hadda la dhisay iyo waxa hadda aan ka hadlayno dhanba biyaha ka hore biyo waa nolosha soo lagama yaabo in lidin soo wado waxyaabo marka wallahi ma garan biyo ku heli karo wallahi inaan biyo la'aanahay oo baan ognahay laakiin hadda waxna loogu soo wadana lama tusin haddii wax naloo keeno oo wax aan aragno kulley waxaan ku diidayno ma laha laakiin dhaliisha culays kale oona dabooleyso wixii wanaagood qabatay tan caafimaadkii dabooleysa gurigan hadda la dhisayo countiga headquarterka uu leeyahay dabooleysa wax badan bay dabooleysaa waana mushkilad inteeda la eg biyo haddaynan jirin maxaa yeelay biyo la-aanteed wax dhaqaaqi karo mala qaabka is leedahay marka countiga biyo uu ku gaarsiin karaa dadka kolley wuu ku gaarsiin karaa haddii daacadnimo looga shaqeeyo cadaaladnimo looga shaqeeyo musuqa meesha laga saaro wasiirka biyaha lala xisaabtamo chief of saga meesha jooga lala xisaabtamo injineerada lala xisaabtamo gawaaskoo lala xisaabtamo har iyo habeen loo soo jeedo governorka iyo dhibidkiisa iyo inta wasiirka biyahaba muhiimad weyn ay saaraan waa laga qaban karaa 100% way fududahay in laga qabto laakiin dadaal badan un baan la gelinin hadda waxaa mara webi Garissa oo maaragtay inta badan iska biyeysan xilliyo qaar uu guro ay jirta balse inta badan biyeysan biyahaas ma looga faa'iideyn karaa reer Garissa waa looga faa'iideyn karaa aanan ka jaahil bixiyo mar uu guro ma jirto webiga ma guro totally absolutely webiga Ganaale mar la dhahaa webiga Tana River ma guro mar walba wuu buuxaa kaliya waxa waaye markay roobka badan jiraanna uu soo fatahaa oo biyihiisa bataan marka kalena biyihiisa nusqaamo laakiin mar uu biyo la'aan yahay ma jirto waa weyn oo aad u baaxad weyn beeraha haday noqoto biyaha haday noqoto looga faa'iideyn lahaa laakiin arrimaha la yaab kale countiga meesha soo maraya dowladda imaanaya niman baa soo dhaaranaya haddana waxa sida ay ahayd wax lagu baahi tirayo oo webiga looga faa'iideysanayo quman ma jirto maadaama ay ka mid tahay aqoon-yahaniinta dhalinyarada ah ee countiga Garissa ka soo jeeda intaa qorteen proposal ku saabsan sidii biyahan webiga looga faa'iideysan lahaa dadka reer Garissa ee biyo la'aantu haysa isla markaasina biyo dabiici ah oo maaragtay ag marayaan sidii biyahan ay uga faa'iideysan lahayd dowladda inaad la wadaagtaan isku dayden dowladda waa tii aan kuu sheegay haddii lagula hadlo iyo haddii in wax laga dhageysto oo aqoon-yahanada wax laga dhageysto oo dhalinyarada wax laga dhageysto way fiicnaan lahayd meeshan countiga inta badan dhibka uu qabo isdhageysi baan jirin isdhageysi baan jirin isla xisaabtan baan jirin meesha uu wax ka haleysan yahay iyo meeshii wax laga toosin lahaa haddii lagu qadarinayo lagula in aad wax la xisaabtanto ama aad fikradaada iyo aqligaaga aad wax kusoo biiriso la ogyahay dee cid ku danaynaysaan jirin haddaan la isdanaynaynin oo dhalintii aanan priority la siinaynin oo governorka ay noqoto iyo dhibidkiisii un dhowr odayaal iskala kulmayaan MCA-da mar meel iskaga xareysan ay noqotay then deliverygii iyo servicekii iyo wixii haykalkii dowladnimo meesha uu ka baxay in badan waxaad ku soo celcelisay MCA-yada in meel iskaga xareysan yihiin MCA-yada ma Soomaha iyagu dad matala dadkani baahiyaha qaba ay aad sheegayso ها ويهن لكن كل واحد نسله طبعا أيها أنو أركب بين أيداد مثلا soo shalay markii la soo dooranayay soo laguma soo dooranin in ay dadkani wax u qabtaan maanta MCA-yadii waxaad ku eedeynaysaa in gebi ahaanba dadkii aysan kusoo dhex noqonin waxba aysan u qabanin mise waxaad ku eedeynaysaa wixii adinka shakhsiyan aad ka rabteen adiga iyo inta kula midka ah inaysan ka helin oo waxaad leedahay baahiyaheeni gaarka ah maxaa nogula fulin layahay maya baahi gaar hadda aniga aan ka rabo dowladdii horena kama rabin tanna hadda kama rabo
countyna korkaan baan ka joogaa oo kamana shaqaynin, laakiin waan ku dhex jiraa siyaasad ahaan aan u ogahay waana analyse gareeyaa. MCA-yada dana gaara lagama weynine, ayagaa dana gaar oofsaday, shacabkiina way galeen. iyaga yaa dana gaara oofsaday oo danahooda iyo calooshooda meesha u joogo iyo mushaarkooda iyo wixii musuq ay qaadan karaan uu qaato, kana aamusan danta shacabki. saad ii weydiisay inaan kaaga jawaabo, kuma aysan dhex noqonin shacabkii iyo dadkii soo doortay. inta badan markii shakhsiyaadka maaragtay wax eedeynaya ama soo jeedinaya baahiyaha badan, dadka Soomaalida waxay yiraahdaan ayaga qofkaasi asaga u baahan ama asaga waa macquul ma tahay Jamaal in uu dana ugu kala countiga ama xildhibaanada intuu ka waayay sidaas daradeed uu ku eedeynayo? ma dhici karto, mana noqonayso. anigu waxaan rabo waxaa weeyaan dadka inay biyo helaan. ani muhiimaddu waxay ii tahay reer Gaariso inay biyo helaan, dadkii adeegooda in la siiyo, MCA-ga inuu dadkii kusoo dhex noqdo oo MCA-ga uu dadku uu adeego, shacabkiisa uu kusoo dhex noqdo. inta aan rabaana waa intaa. ana meeshu ilmaa ii joogo, reer baa ii joogo, qaraabaa ii joogto, walaalaa ii joogo, ehelaa ii joogo, iyo Soomaalida dhanba inay hadda dadkii meeshii ay ku wax waayaan oo lagu wax yeeloobo oo dadka serviceka loo gudbin waayo. anigu taas kuma doorsan karo lacag ama dana shakhsi kuma doorsan karo. shakhsigaygu aan wax waayo, laakiin dadku wax helaan. muhiimaddu waa taas. xildhibaanadu ayaga Gaaris ayay degan yihiin, qaarkood ilmo ayaa u joogo, reere ayaa u joogo, waalidiintii dhale ayaa joogo. so idin lama mid ah biyo la'aanta ma hayso? way haysaa, laakiin waxaa weeye xildhibaanku wuxuu awoodaa 5,000 in uu isagu uu booyad biyo uu ku dejisto meesha. laakiin maamada masaakiinta ah ee Buulamasuuri joogto aynan dejisan karin. isaga laakiin 2 booyad 3 booyad buu maalinka dejisan karaa oo biyaha. baahidiisu lacag buu ku dabooli karaa isaga. markii xildhibaankii ay danta ku kaliftay in biyo uu dejisto oo maaragtay lacag uu ka bixiyo, asagoo haddii uu awoodo soomuusa siiseen dadka dhan si free ah, maadaama si asagana lacagtaasi ugu baaqato. ilan wuu qabaa dhibaatadii dadka ay qabeen wuu la qabaa soo ma? wuu qabaa, laakiin haddii nin uu yahay laaluush qaatay oo ka aamus la dhahay arrintan, ilaan waxaa leeyahay calool wax cuntay hadal waa ku ceeb, ma hadli karo. qofka hadduu musuq maasuq qaatay oo inta la musuq maasuqay la dhahay arrintaa nagu soo qaadin ha ka hadlin, oo biyahana la og yahay inay dhibaato tahay, dee isagu markaa lacagtii uu musuq maasuq ku qaatay biyuun buu isaga dejisay. marka macnaheedu waxay tahay in xildhibaanada biyo ee gooni u dejistaan, dadkana biyo la-aan ay hayso. key areas zonka aanan lahayn degan, run ahaantii kolley waxaa weeyaan lacagtiisu yuu ku dejisanayaa. wax dad uu dan ka leeyahay iyo wax shacab baahan uu dan ka leeyahayna ma jirto, laakiin waa mid aakhira u taalo kolley wax laga su'aali doono. dhanka xaafadaha biyaha leh ayagu yaa biyaha gaarsiiy? xaafadaha biyaha leh weligeed bay biyo lahaayeen ilaa iyo xilliga nadiif, ilaa iyo inkastoo aan isleeyahay countiga intuusan imaanin biyuhu wayba roonaayeenba. xaafadahana waa xaafado webiga ka agdhow, sida townka oo dhan biyo wuu wada helaa. Boole Iftin way helaan, waana ilaa Borofiska ceel baana u qodan oo xilliga nationalka la qoday oo ay isticmaalaan. hadda wax soo jeedintaada waxaan kusii siqeynaa daqiiqadihii ugu dambeeyey ee barnaamijka, annagoo rabno inaan soo gabagabeyno. waxaan rabaa 4 su-aalood inaan ku weydiiyo oo su-aalo furan oo siyaasadda ka baxsan ah. 4taas su-aalood waxay tahay, shakhsi Soomaaliyeed ayaa tahay oo jinsiyan Soomaaliya kasoo jeeda, wax badanna deegaanada Soomaalida iyo gudaha dalka Kenya waa ka garanaysaa. Jamaal, haddaan ku dhaho magaalo xeebeed ka tirsan dalka Kenya ama Soomaaliya baan idhaahdee dalka Soomaaliya ayaan ku dalxiis geynayaa, magaaladee dooran lahayd? dalka Soomaaliya mise dalka Kenya? haddii aan ku dhaho Soomaaliya ayaan ku geynayaa magaalo xeebeed ayaan ku dalxiis geynayaa, magaaladee dooran lahayd? waxaan dooran lahaa Kismaayo. okay, haddii aan ku idhaahdo Jamaal, mas-uul ayaan kaaga dhigayaa maamul ka tirsan maamulada dalka ka jira ee Soomaaliya, maamulkeed jeclaan lahayd inaad wax ka qabato? kolley hadda kama noqon karo, laakiin kolley waxaan door bidi lahaa inaan Jubbaland wax ka noqdo. haddii aan ku dhaho mashruuc iyo lacagaa lagu dhiibayaa maalgeli magaalo kamid a magaalooyinka Soomaaliya, magaaladee maad gashan lahayd ama aad wax ka bedeli lahayd oo dhismaheeda iyo wadooyinkeeda iyo bilicdeeda aad hagaajin lahayd? kolley haddii mashruuc la ii dhiibo magaalo wax ka qaban la ii dhaho, Gaaris baan wax ka qaban lahaa. Gaarisa ayaa wax ka bedeli lahayd. waa tahay wax hal daqiiqo ka yar ayaan ku siin doonaa fikirkaaga ugu dambeeya iyo maaragtay dardaarankaaga. alxamdulilah, horta waa mahadsantahay Xudayfe.
dhammaan bahda TV-gan way mahadsan yihiin horta ramadaan kariim ciidna way noo soo dhowdahay 10 dambe aan ku jirnaa ilaahay cibaadaha naga aqbalo soonka Allah naga aqbalo dadkan siyaasiyiinteenan ayagana is haysto ilaahay wadada saxda ah waan u duceyneynaa inuu ilaahay ku soo dumo dad qalbigooda isu duman alla ka dhigo marka waana mahadsan tahay cabsidaan baan dardaarmaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay daawadayaal intaasi waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii bandhiga oo aad ka daawanayseen muqbahyaha STN xaruntiisa dhexe ee magaalada Nairobi caawa waxaa igu marti ahaa saaxiibkay Jamaal Cabdiqaadir Sayid Cusmaan oo kamid ah dhalinyarada reer Gaarisa isla markaasina ka tirsan ururada Gaarisa ka jira urur kamid ah hogaamiyaha tan intaynu ku kulmi doono barnaamijka xiga waxaan idinkaga tagayaa